haddii aanan dhulkaygo dhuux cadaawo ku karin haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu foldhigin haddaan dhulkaygo gobonnimada soo dhicin Soomaali kama oo beelaha galbeedku suldaankooga wabarba ugu yeedhaan it means wabar waa suldaan. When they tell you, Borama is the mother of Somaliland, this is a lie. This is just to flatter you. nabad waa wax fiican laakiin nabad bila horumarihi waa gaari bila taayiraabu imigase de war waqti igu isbedelay waan tashanayna daaya mudanayaal iyo marwooyinba marti sharaftan beesha Samaroon ama Gadabuursi ay isugu timiday xaruntan sida quruxda badan loo soo agaasimay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. mudanayaal iyo marwooyinba sidaad ogtihiin arrintan caawa halkan isugu imanay waxay u badan tahay ama ay salka ku haysaa taageerada kacdoonka ka socda galbeedka Soomaaliya ee gaar ahaan ay hogaaminayaan Suldaan Wabar iyo Cabdiraxmaan Shida Bile oo beelaha galbeedku suldaankooga wabarba ugu yeedhaan it means wabar waa suldaan. wabar wuxuu macluumaad badan ka qaatay intii uu ku noolaa dalka Mareykanka daraasad badan uu sameeyay in badan uu ku noqnoqonayo wadanka wuxuu isla ogaaday uu cadeeyay in wixii la sheegay uu run ahaa markuu Mareykanka joogay oo dadkaas inay ku nool yihiin baadil taasina waxay ku dhiirigelisay inuu kelmadda xaq qaato oo uu ku dhawaaqo inay dadkiisu ku nool yihiin baadil ayna kana tirsanayn December 4 2014 laga bilaabo wax la yiraahdo Somaliland. When they tell you, Borama is the mother of Somaliland, this is a lie. This is just to flatter you. And just use your brain for 1 second. The conference in Borama took place when? 1993, right? So mothers give you birth. All of our mothers gave us birth. My mother gave me birth December 13, 1982. I was born 1982. So if Borama is the mother of Somaliland, then how come Somaliland wasn't born 1993? Why do they celebrate Independence Day in 1991? How are you the mother in 1993, but 1991 is the Independence Day? Don't let them fool you. My mother gave me birth in 1982. I can't sit there and say I was born 1980. No, I was born 1982. So that's a lie when they tell you that Borama is the mother of Somaliland. This is a way to fool you, to trick you, to make you naive, to believe something that you're part of something when you're really not even part of it. They put a gun to your face and they told you you're part of it. odayaal Borama ka hadlay oo muddo kara oo dadkeenni waaweynaaya dadkii laga filayay inay wax saxaan dadkii laga filayay inay hargeysa tagaan Siiraayo u garnaqsadaan dadkii laga filayay inay yiraahdaan waxba qaldane annagu wabar hadda afka kuma taagi karnaa ama jabhadaas adeero wax naga ka jiraan bal horta taada sax tay naga dhaxaysa aan saxno ninkaan annaga la soo hadlayna halkay ka oran lahaayeen waxay maanta bilaabeen oo yiraahdeen war nabadii unaan ilaashano Professor Salebaan baa waxa maanta aan ka hayaa hadalkiisii ku jirtay nabad waa wax fiican laakiin nabad bila horumarihi waa gaari bila taayiraabu wargaariga bila taayirka bila maxay ahayd taayirada iyo adeero taayiro u raadinaynaa mana daynaysaan mise inaga taayiro u helaya wax la isweydiiyo way laba nin bay sagrab deganaa labada nin markaa nin baa buuri cuna ahaa labaduba buuri cunahan laakiin nin baa jeebkiisa de soo iibsan jiray marka ninkan kale jaarkiisuna buurigaasu ka gashan jiray kan kale markay dhowr iyo 20 sano socoto maalin walba deed buuriga u galiyo ayaa markii dambe waxa dhacday abaar markaasuu dekii buuriga laga gashan jiray baa soo yaa de loo soo doontay buuriga markaasuu buurigii geli wada ku gali maayay iga tag wuu diiday ninkii uu xanaaqay loo galin jiray buuriga wuxuu yiri sidoo iigu diidaa de 23 sano 24 sanaan buurigan la ii gelinayay maba dhici karto garbaa la isku soo dawaar waxa la yiri buuriga maada la iibsaday lama iibsan day wanaag buu iyo jaarnimo kugu siinayay day isaga tag marka waxaan leeyahay warday jaarnimo iyo wanaag baan idin la soconay hadii aanu 23 sano idin daba soconay imigase de war waqti igu isbedelay waan tashanayna daaya nin maanta aqalkiisa yani maxaan ku dhadaaya intuu soo maydho soo feedho ka soo quraacdo xafiis u shaqo tagaa ma jirto
waa 95% waxay ku tiirsan yihiin qurba joogay ku tiirsan yihiin magaalada Boorama bisha 1 markay tahay ilaa bisha 5teeda xawaaladuhu laynkoogu wuxuu isdaba galaa ilaa midiiba 1 mile ayuu taagan yahay cidima daryeesho qurbahay ku nool yihiin haddii 1 day xawaalada la xidho waxay la tahay dadka reer Awdal da ilaahum ba xaaladooda ka waramaya haddana habeen iyo maalin qurbahaas ay haystaan waayo daryeel kale ma jiro yaa shaqo taga oo Boorama maanta iyo Awdal yaa dawladda u soo shaqeeyo mishaar ka soo qaata less than 5% weeyaan federaalka Soomaali warrabto nin waliba uu gobolkiisa raba inuu maamusho أو جيس كأفريقيا ولا ندي أي وذا باي عشرة ده كام ما نربنا واحد كلام ما نربنا مال وحوي ما هبا وحوي ورقبل كأوضل وضيع ذي مركز جوجل سجيت النادي يوم محوها يوم محوها تضبط النادي أيوسو هالجمين هالكي لحدن كي لجور ردي لحدن كي واحد وقتان قبل كاني لورنجري سيلع بورما ديستريكت لورنجري هرجيس على هوس كاني بريغنا واحد لهوس كاني برع لهوس كاني dariiq la'aan bay nagu riday taasi horumar la'aan bay nagu riday dib dambe meel ay noo hoos keenay ma ay taa ogaada regionka Awdal iyo districtga Gabiley inta aynu ku noolnahayna de xaq baynu u leedahay inaan maamul ka samaysano quud kasto adduunka ay timaadana cid inoo diidi kartaa ma jirto shalay toole cabasho qurux badan baa loo gudbiyay maamulka oo lagu yiri waxaan wada lahayn salaadiinta gobolada galbeedka Awdal ay u gudbiyeen yiraahdeen waxaan wada lahayn ayaan ka doonayna oo maanta kaaga fadhina tii ilaa hadda muu fulinin oo miiska hoosteedu dhigay waxa liya wax la isku ogol yahay oo meesha yaalaana ma jiro markuu leeyahay way in aqbalsan yihiin waxay yiraahdaan way qaadanayaan maxay u qaadan waayeen baan leenahay hadii la wax wada leeyahay oo waxaan shalay toole loo geeyay ay wax uga keen waayeen oo wasaaradahan maanta iyagu ay ku fadhiyaan ay leeyihiin waxa liya wax anaga naga go'aya ma laha ay wax uga soo qaadi waayeen maana leeyahay